gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo wadooyinka waaweyn ee dhexmara caasimadda xilli lagu guda jiro maalintii saddexaad ee Ciidul Adha isla markaana magaalada ay ka daayaan roobab xagaa ah duqa magaalada Muqdisho ayaa u kurgalay goobaha roobabka xagaaga uu biyo dhigay iyo bulaacadaha qaada biyaha waxa uu faray agaasimaha bulaacadaha iyo agaasinka guud ee bilicda iyo nadaafadda ee gobolka Banaadir in la dargeliyo howlaha biyo qaadista iyo nadaafadda ee caasimadda Muqdisho sidoo kale Cumar Filish oo tagay meelaha biyo xiranada caasimadda oo aan diyaarsanayn isla markaana qaarkood ay qashin buux dhaafiyeen ayaa sidoo kale amray in la dargeliyo howlaha dib u soo celinta bilicda caasimadda iyo in la dhuuqo biyaha yaalla wadooyinka weyn ee magaalada Muqdisho si uu u fududaado socodka gaadiidka dadweynaha shacabka magaalada Muqdisho ayaa saameyn weyn ay ku yeelatay roobka daaya magaalada Muqdisho kuwaas oo wadooyinka weyn ee caasimadda ay buux dhaafiyeen biyaha roobka isla markaana xaafadaha qaarkood ay xirmeen wadooyinkii loo mari lahaa halka wadooyinka laamiga ah ee magaaladana ay buux dhaafiyeen biyo taas oo dhibaato weyn ay ku qabaan gaadiidleyda noocyada kala duwan ee ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay Muqdisho waxa ka daayay roobka xagaaga ah iyadoo waxyaha kala gedisan ee gobolka Banaadirna uu ku mashquulsanaa sidii bilcida iyo biyaha roobka uu dhigay magaalada wax loo qaban lahaa Cumar Filish ayaana booqasho arintaas ku saabsan ku tagay maanta meelaha saameynta weyn ee ka taagan tahay ee gobolka Banaadir oo biyaha roobka ay buux dhaafiyeen Nuur Cabdiraxmaan Nuur VOS TV Muqdisho.